سؤال بنكويدينيا سؤال شاسو أن لبني المصاحبها واحد كلا دلنا لبها بلاد لبادي هبلاد من دم مد بقرصدين ما حي يسكون نقنا يعني أبد كيدلنا ما قاعدنا markoo reestoonku salaamaya marka ku xigta laba nin baa waxay kala gursadeen laba hablood ay kala dhaleen laba hablood oo kala saaxiib markii hore labada nin baa saaxiiba laba hablood bay dhaleen labadii hablood mid mid gursaday ubad ka dhalaan maxay soo noqonay la shaashi waa dagtay kama jawaab karo isku day ma garan karo la shaashi labada nin baa saaxiiba haye laba hablood bay dhaleen haye labadii hablood mid mid gursaday ubad ka dhalaan maxay soo noqonay labadooda maxay soo noqonayaan walaaleen may nootan waxay soo noqonayaan maadalma noqonayaan labada saaxiibka laba nin oo saaxiiba baa laba ubad carruur hablood kala dhalay midba mid buu guursaday ubadkay dhaleen maxay soo noqonayaan saaxiib ma noqonayaan horta dee labada hablood markii hore walaalo ma ahan laakiin laba nin baa kala dhalay moogtahay marka labada carruurta ay dhalaan waa walaalo labada gabdhood kana carruurta dhashay tan carruurta dhashay waa walaalo weeye because aabaheeda dhalay carruurtan tan aabaheeda carruurtan dhalay waa ka waan ku faraxsanahay inay gabadh igala soo qayb gashay markii ugu horeysay barnaamijka ama wax barnaamijkan aynu duubayna in ku guda jirno waan kugu soo dhaweynayaa barnaamijka kaftanka Kelson TV su'aal baan ku weydiinayaa su'aashaas oo ah laba nin oo saaxiiba ayaa laba hablood kala dhalay midba mid buu guursaday ubadkay dhaleen maxay soo noqonayaan ubadkay dhaleen walaalay noqonayaan malaha walaala waan u malaynay aad bad ma santahay ubadka dhaleen wada saaxiibada abahood ma kasi halka si haynayaan xus ma laakiin ay waa saaxiibo saawi horta labada qof waxay isku noqonayaan mataqaana labada qof waxay isku noqonayaan ubadka noo dambeeyay waxay isku noqonayaan wiili waalidkiisa isku noqonayaan janib kana waalid buu noqon janib kana wiil noqon kaasna mar waalid noqon kana mar waalid noqon xaqii xaqab waa laba qof isdhaafsatay ubadka Soomaa daawadu waa walaaloon bay noqonayaan su'aasha mar labaad kugu celiyo laba nin oo saaxiiba ayaa laba hablood kala dhalay labadii hablood midba mid buu guursaday ubadkay dhaleen hablahaas maxay soo noqonayaan saaxiib ma isku noqonayaan su'aal baan ku weydiinayaa laba nin oo saaxiiba ayaa laba hablood kala dhalay labadii hablood midba mid buu guursaday ubadkay soo dhaleen maxay soo noqonayaan labadeenu haddii isku guursano maxay isku noqon ya labadeenu haddii isku guursano maxay isku noqon walaalan ma leh iyaguna walaalun weeya oo walaal laba nin oo saaxiiba ayaa waxay kala dhaleen laba hablood labadii hablood midba mid buu guursaday ubadkay soo dhaleen maxay soo noqonayaan maxay isku noqonayaan horta waa su'aal adag aan ka soo fiirsan markii hore imika dib aan uga soo fiirsanay horta halka igu xidhnaato